insha Allah karim intaynaan xidhan xogayaha ayaan ku soo celinayaa si uu inoola wadaago xog ku saabsan guddiga joogtada waxaan halkan idinku soo gudbinayaa sida uu gudoomiyuhu igu wargeliyey qoraal ku saabsan iscasilaad xubin guddiga joogtada golaha wakiilada ee gudoomiyaha u soo gudbisay oo ku taariikhaysan 25kii bishii 9aad 2021 mudane gudoomiye anigoo ah xildhibaan Cabdiraxmaan Diiri Carab kana ahna gudoomiyaha guddiga siyaasadda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo xidhiidhka caalamiga golaha wakiilada dowladda Puntland waxaan halkan kugu soo gudbinayaa iskana casilay xubinnimada guddiga joogtada laga bilaabo taariikhda kor ku xusan waxaan guddiga joogtada oo aan ka tirsanaa muddooyinkii la soo dhaafay uga mahadcelinayaa wada shaqayntii hagarlaanta ahayd iyo iskarabsiintii guulaha badan keentay ama laga gaaray waxaan rajaynayaa in golaha wakiiladu iga aqbali doonaan iscasilaada wabillahi tawfiiq waxaa ku saxiixan xildhibaan Cabdiraxmaan Diiri Carab isla warqadaas markuu gudoomiyuhu helay wuxuu qoray warqad kale oo tirsigeedu yahay 63/2021 isniin taariikhaysan 27 bishii 9aad 2021 ku xildhibaan Cabdiraxmaan Diiri Carab xogayaha guud ee golaha wakiilada ujeedo aqbalaad iscasilaad xildhibaan Cabdiraxmaan Diiri Carab xubinnimada guddiga joogtada anigoo ka duulaya qodobka 15aad farqadiisa 3aad 5aad xeerosaadka golaha wakiilada isla markaana tixraacaya ka maqnaanshaha kulamada 1 iyo 2 iyo 3 ee guddiga joogtada iyo qoraalka ku taariikhaysan 25kii bishii Sebtembar 2021 ujeedadiisu ahayd soo gudbin iscasilaad xubinnimada guddiga joogtada golaha wakiilada waxaana kula socodsiinayaa inaad lumisay xubinnimadii guddiga joogtada ahayd maadaama aad sabab la'aan ka maqnayd 3 fadhi oo isku xiga kulamadii guddiga joogtada sida uu qabo qodobka 15aad farqadiisa 3aad ee xeerosaadka golaha wakiilada sidoo kale waxaan aqbalay iscasilaada aad iska cadisay xubinnimada guddiga joogtada si waafaqsan qodobka 15aad farqadiisa 5aad ee xeerosaadka golaha wakiilada waxaan kaaga mahadcelinayaa wada shaqayntii muddada aad xubinta ka ahayd guddiga joogtada golaha wakiilada dowladda Puntland waxaan ku saxiixan gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland wada shaqayn wacan mudanayaal gobolka Cayn waxaan ka codsanaynaa inay soo gudbiyaan xubintii buuxin lahayd guddigaas sida uu qabo xeerosaadka waxaan siinaynaa insha Allah maanta isniina 3 4 iyo khamiis inay ku soo gudbiyaan maalinta khamiista ugu dambeyn maalinta khamiista hadeen isku raacin oo isku raaci waayaan oo marka ay kursiga ku tartamayaan maalinta sabtida kursigaas doorasho geliya wabillahi tawfiiq maantana fadhigeena intaas inoo geeyo masalahan waa inoo xidhay